xogayaha guud ee xisbiga UCID Axmed Xirsi Ducaale iyo xogayaha warfaafinta xisbigaasi Kayse Yuusuf oo maanta sidoo wada jira xafiiskooda ugu qabtay shir jaraa'id ayaa ka hadlay go'aankii xukuumaddu ay ka soo saartay xakamaynta sixir bararka. Geesta kalena mas'uuliyiinta xisbiga UCID waxa ay dhaliileen nidaamka madaxweynaha Somaliland oo u soo xushay golaha wasiirada iyo dhammaanba xukuumadda uu soo magacaabay. Iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa ay yiraahdeen waxa jirtay inaynu dhowr bilood ka hor doorasho soo galay lagu doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ee Muuse Biixi Cabdi intii ka dambeysay oo dadka Jamhuuriyadda reer Somaliland ay sugayeen isbedel badan oo madaxweynuhu markiiba sameeyo hawluhu siday u socdaan runtii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland annagoo aan isaga shakhsiyan iyo dawladdiisa midna waxba ka sheegaynin waxaanan ka xisbi ahaan sida shacabka reer Somaliland in badan oo ka mid aanay ula dhacsanayn qaabka ay u socdo horumarinta dardargelinta iyo dhisidda qaranka ee ka bilaabmo markii la doortay isaga intii ka dambeysay taana waxa keenaya wadciyada uu la kulmay iyo siyaabaha uu madaxweynaha iyo xukuumaddiisu ay shacabka reer Somaliland ugu soo bandhigeen in looga bixi karo waa wax iska caadiya marka dawlad cusub timaado ama madaxweyne cusub la doorto in talaafooyin badan ay yimaadaan dagaalla ehliya oo sokeeye ayaa dhacay waxaanu aaminsanahay sidii looga baahnaa inaanu madaxweynaha iyo dawladdiisu aanay ilaa iminka ama hadal ha noqoto ama ficil ha noqotee iyadoo ciidanka qaranka uu kala dhex joogo beelihii dagaalamay haddana inay dadku tabayaan doorkii madaxweynaha iyo dawladda arrinta sicir bararka oo uu yimi iyadoo jirta kana sii dartay intii uu madaxweynuhu joogay iyo dawladdan cusub sida ay shalay go'aanadii ay soo saareen ay sheegayaan waxaan aaminsanahay inay wax badan ka tageen oo sicir bararka wax ka qaban lahaa waxaa ka muuqata wafdiga aan idhaahday guddida uu u diray madaxweynuhu inaanay daraasad camiiqa ama daraasad khibradnimo expert aanay u ahayn qaabka ay wax soo xalka u soo saareen in dhabbihii ay ku ololeeyeen ay dhinac maraan tan ka hadlaynaa waa taa aan dhaliilsanahay ee ololaha shalay toona ku galeen inay dhinac mareen ayuun baan imikana sheegaynaa haddii si fiican ay wax wada lahayn waan ku taageersanaanahay laakiin waxaan arkaynaa in sida Axmed sheegay habka kriteeriyada uu ku xushay iyo wuxuu u eegayba iyo kriteeriyadu u eegayba inaan dhaliilsanahay mucaarada unay waxaan u taaganahay inaanu shacbiga reer inaan xukuumadda ku ilaalino inay cadaalad samaysay iyo inay cadaalad darro samaysay anigu halkaan ka hadlayaa waxa weeye madaxweynuhu muu sameyn cadaalad wax la yiraahdo muu sameyn xisbigu wuxuu jira waynu ka soo gurnay nidaamkii loo oran jiray qabyaaladda xisbiyadu waxay ku aasaasan yihiin inay cidda dulman u hadlaan cadaalad darrada madaxweynuhu sameeyana inay xisbiyadu afkooda ku hadlaan marka xisbiga UCID qalinka madaxweynaha wuxuu u jiraa inuu madaxweynaha qalinkiisa ka soo baxaya subax kasta inaanu kamarad ku eegno caafimaad qabta maadaama anagu aanu shacbiga reer Somaliland ka wakiilnay annaga imika ku hadlaynaa shacbiga Somaliland afkiisa waanu ka soo guurnay nidaamkii loo oran jiray qabyaaladda iyo waan ka soo guurnay waa nidaam dimuqraadiyad bayn maraynaa marka annaga ku hadlaynaa afkii shacbiga reer Somaliland inta cadaalad darrada tirsanaysa Maxamed Hussein Jaamac Star TV Hargeysa.